بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين ورسوله الكريم وعلى آله الأطهار الطيبين وصحابته الأخيار الأبرار المجاهدين الذين رفعوا رايات التوحيد في أنحاء المعمورة يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فرضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، وذلك لمن خشي ربه وأداع أمره واتبع هدي نبيه وعبده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، waxaynu ku ballansanayn inaynu wax ka ogaano halgankii labaad, maadaama aynu kii hore xoogaa dusha ka xaganay sanadkiina soo dhaafay. ka labaadna inaynu sanadka wixii aynu ka gaari karno aynu ka nidhaahno halgankaas oo ah halgankii uu hogaaminayay ninkii la oran jiray imaam axmed ibnu ibraahim raxmatullahi calayhi, oo ahayd dagaaladii dhex maray mujtamacaadka muslimiinta ah ee soomaalida iyo canfarta iyo dadkii la halmaali jiray ee deegaamada la deganaa ee muslimiinta ahaa iyo nimankii xabashida ahaa ee tigreega iyo amxaaradu ay hoggaanka u ahaayeen. kitaabkaas marka halgankaas sida aad ogtihiin waxa macruufa oo la yaqaanaa wixii sheeka berele ama dokuteena oo dad degmaqal laga soo gaaray mooyaane, kitaabka ugu muctamadsan ee akhbaarta ama taariikhda loogu noqdaa waa kitaabka uu qoray ninka la yidhaahdo shihaabuddin axmed ibnu cabdilqaadir ibnu salim ibnu cuthmaan aljisani. ninkaasi waa nin yamani ah. ninkaasi wuxuu leeyahay kitaab buu ka qoray arrintaa uu leeyahay tuxfatu zamaan ayuu u bixiyey, ama wuxuu leeyahay futuuxulxabasha, labada magacba wuu isa saaray. kadibna wuxuu kusii qoray hoosta الصراع الصومالي الحبشي في القرن السادس العشر الميلادي، واللجدنكي صوماليدا يا حبشيدا ee qarnigii 16aad ee miilaadiga, kan islaamkana waa qarnigii 10aad markii xagga loo noqdo. wadaadkaas ibnu shihaab al-jisani raxmatullahi calayhi kitaabkiisaasi waxaa la isku raacsan yahay in uu kala anbaday oo aan ururintiisa iyo aan wax badan oo muhiimada laga geysan. hase yeeshee wixii markii muddo la daba joogay aduu kitaabka waxaa la helay jus ka mid ah. waxaa la isku raacsan yahay oo ay badan ay tilmaamayaan kitaabku ma laba jus buu ahaa mise hal jus buu ahaa. labadaa muran baa ka taagan. qole waxay leeyihiin kitaabku halkaa jus buu ahaa, kuwa kale waxay leeyihiin maya kitaabku laba jus buu ahaa. laanna waynu arki doonaa in markaynu dhammayno ayuu meesha ugu dambaysa wuxuu ku odhan doonaa halka waxaa ku dhammaaday juskii hore. macnaheeduna waxa weeye oo laga fahmayaa in qaybtii labaad ama cutubkii labaad ee kitaabka uu lahaa uu meesha ka maqan yahay. kitaabkaas aduu qaybtiisa labaad jaan iyo ciri meel u dhigay waa la waayay. asbaabay sheegaan. qole waxay leeyihiin gabadhii uu qabay axmed gurey uu ka dhintay oo laga dilay ayaa diiday in la daabaco, ayaa haysay oo aan dib arag waa la sheegaa. qole waxay leeyihiin maya ee wadaadku waa qoray, jiisaan buu la aaday kadibna waa gubtay kitaabkaas. qolena waxay leeyihiin qolyihii harar joogay ee uu kaga tegey qaar ka mid ayaa kitaabkaa lumiyay. aduu asbaabtoosa waa la sheegaa. isku soo duuduub kitaabkaa qaybtiisa labaad laba hayo. qaybtan koowaad nusakh buu leeyahay aad loogu murmo oo tiro badan oo qoloba ay mid meel la aado ay leedahay tanaa ugu saxsan iyo tanaa ugu saxsan. waxaa la isku wada raacsan yahay nusakhda ugu muctamadsan waa 6 nusqo inta caalamka laga helay. nuskhada koowaad waxaa laga helay nin la oran jiray barton nin la oran jiray oo aad wax uga qori jiray tafaasiisha xuruufka masiixiyiinta iyo muslimiinta dhex mara. ninkaan nuskhadiisii waxaa la yidhahdaa iyadoo ku turjuman luqadihii laatiinka ee yurubiyaanka ahaa ayaa la helay khaladaad badanna oo ku jira. nuskhada labaad oo muctamadka waxaa la yidhi nin la yidhaahdo amduun oo xabashi ahaa ayaa kitaabkaa laga helay. amduun waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa nin aad wax uga qoray waxa la yidhahdo juqraafiyadda bilaadulxabasha. saas daraaddeed waxaa la yidhahda kitaabka asalkiisa waxaa hayay nin walaalkiisa oo amduunka la dhashay oo la oran jiray amduun abadi, oo kitaab weyn oo juqraafiyada xabashida buu aad u leeyahay. nuskhadaas ayuu wuxuu haystay baa la yidhi muddo ka badan 30 sannadood ayuu ninkaasi hayay amduun walaalkii. markii dambena ninkii amduun la oran jiray oo juqraafiyadda wax ka qoray ayuu u hadiyeeyey ninkan. nuskhadaas marka waxa waa nuskhada ugu muctamadsan baa la yidhahdaa, laakiin gacanta soomaalida iyo gacanta muslimiinta ma ay soo gelin. qolada xabashida oo ayaa isu dhiibtay. nuskhada saddexaad waxaa la yidhahdaa nin la oran jiray major baridu oo ka mid ahaa gumaystayaashii mililik la shaqayn jiray ayaa soo diray wuxuuna ka soo diray magaalada harar, oo ninkii la oran jiray hunter oo mililik la qabtay magaalada harar ayaa loo malaynayaa inuu magaalada harar nuskhadaa ka soo qaaday. waxaa kaloo jira nuskho kale oo iyaduna qaahiro loo diray oo uu soo diray ninkii la oran jiray ra'uuf baasha. ayada laftigeeda waxaa la leeyahay inay gubatay baa loo malaynaya, laakiin qaar ka mid ah. qaybta nuskhada saddexaad waxa weeye nin la oran jiray nirazani ayaa wuxuu leeyahay kitaabka nuskho ka mid ayaan helay. dad haystay ayaan waxaan damcay inaan ka iibiyo, laakiin lacag badan bay ii gaareen. kadibna wuxuu yidhi waxyaaba aan ka soo qorqoray uun baan hayaa, taana iyaduna muctamid maaha. nuskhada kale oo muhiimka waxa weeye intii aan
mililkh iyo dowladda Ethiopia ay dhismin xukunku waa Amxaarada iyo Tigreega kaliya uu ahaa nin kamid ah maamulayaashii ama hogaamiyayaashii Tigreega oo Najaashi la oran jiray oo ka horreeyay xilligii adigu laba qarni intaan gumaysiyaashan iman ka hor ayaa waxa la sheegayaa inuu asaguna nusxa hayay nusxadaana uu amray in lagu turjumo luqadda Amxaarada taana Tigreega ayaa iyadana gacanta lagu hayo nusxada afraad waxa weeye waa nusxada ugu muctamadsan oo waxa laga helay Madiina ku taala wadanka meesha la yiraahdo Algeria ayaa laga helay ninka kitaabka Algeria geeyay waxa la yiraahdaa Bardigaas ma reer galbeed ba ma muslim ba ilaahay hada aru ciidu yaa maaqani nusxadaasi si kasta meesha ku tagtay waxa laga helay magaalada la yiraahdo wadanka la yiraahdo Jazaa'ir ayaa nusxada loogu tagay waana nusxada hadda kitaabka ugu muctamadsan oo dadku ay gacanta ku hayaan loo ictimaado raqamkeedii waxa soo dhaway qorqorayaan laakiin waxa ku leexleexan mayno nusxadaas waxa helay nin Faransiis ah oo buxuusan bariga Afrika aad ugu takhasisay oo la oran jiray Dina Basi ninkaas wuxuu sameeyay in uu Jazaa'ir nusxada ugu tagay kadibna uu soo taqriiriyay wuxuu leeyahay nusxadaasi 99 safxadood bay ka koobnayd waxayna lahayd biira canaawiin qalin cas lagu qoray ama khad guudan lagu qoray waxay kaloo lahayd biira magacyada meelaha iyo calaamta iyo raga magacyadooda meesha ku jirto iyadana qalmaan cas baa lagu qoray kadibna wuxuu leeyahay nusxooyinka adduunka yaallo oo dhan fiirfiiriyay waxay noqotay nusxada iigu habboon ee aan isiri kitaabkii oo dhammaystiran ayaa laga helayaa inkastoo uu sheegay ilaa iyo dhowr iyo 20 safxadood oo cadcad oo aan wax ku qorayn maaqa wax ku dhacay in iyadana ku jireen kuwa kale marka la kaakaashay adigu nusxadaas waxaa la daabacay 1883 ayaa la daabacay nusxadaas oo uu taxqiijiyay oo uu muqaddimo afka Faransiiska ku qoran uu saaray kitaabka ugu muctamadsan ee la hayo ee mutadaawilka ay nooca way dadka turjumay dad badan baa waxay isku dayeen kitaabka inay turjumaan oo ay luqado kale ku qoraan waxa kamid ah Djibouti hadda mid baa lagu turjumay dawladdii Maxamed Siyaad Barre xilligeedii mid bay turjuntay macaanida noocaas oo dhan marka aynu ka soo gudubno waxaan uga jeednaa nusxada aynu ictimaadi doono waa nusxada noocaas oo ninkaas Faransiiska ahi uu taxqiijiyay waana nusxada hadda la isku raacsan yahay caalamka islaamiga oo dhan ay tahay midda ugu roon waxaana kadib taxqiiq ku sameeyay oo dabagal ku sameeyay ama tafaftiray nin la yiraahdo Fahim Maxamed Shaltuut oo Masri ah waxaana lagu daabacay maktabatu al-Qaahira al-Islaamiyya dawladda galana intaynaan marka kitaabka gudagelin iyo taariikhdan iyo hawsheeda waxaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo ninka la yiraahdo Ibn Shihab al-Jisani oo ah Ahmed ibn Abdul Qadir ibn Salim ibn Uthman al-Jisani oo ninka kitaab qoray wuxuu leeyahay kitaabka laba qaybood buu qaybinaya labada qaybood oo qaybinaya waxa weeye qayb wuxuu leeyahay ana taagnaa dhacdooyinka iyo dagaalada iyo sida ay wax u socdeen iyo imaamka falooyinkiisa iyo hawsha oo dhan iyo ciidamada inta uu taagnaa uu sheegi doonaa inta ka horeysa wuxuu leeyahay laba nin oo muctamada buu noo sheegi doonaa labada nin oo tilmaami doona inay yihiin labada nin oo ugu kalsooni badnaa oo uu u ictimaaday inuu wax laala wixii war ah oo meeshan ka jiray ama deegaamadan ka jiray ee ka horreeyay inuu ka qaato labada nin waxa la yiraahdaa Amir Hussein ibn Abi Bakr al-Jarti minna waxa la yiraahdaa Ahmed Din waxa la yiraahdaa Ahmeduddin ibn Khalid ibn Muhammad ibn Khayruddin labada nin ayuu ka qaatay marka kitaabka wuxuu qaybinayaa laba qaybood qaybta dhacdooyinka dagaalada iyo halganka Ahmed Gurey suu meesha ku soo galay suu ciidamada ku qabsaday suu maamulka ula wareegay suu halganka u bilaabay intii asiga ka horreysay qayb uu ka dhigayaa wuxuu kaloo ka hormarinayaa qayb ku saabsan horta meeshan maamulada ka jiray xageebay ka soo bilowdeen sideese wax isu soo bedeleen ilaa laga soo gaaro markii uu imaam Axmed asagoo canug yar ah intuu raggan ka soo dhex baxay oo wixii oo dhan kab kula tuntay oo adduunku dhan islaaxiyay kadibna uu go'aansaday inuu nimanka duulaan ku galo arrintaas waxaan uga jeedaa inaad fahantaan manhajyada kitaabka ku socda qaybta labaad oo dambe oo sheekhu isagu uu joogay oo taagnaa qaabka guud ee uu kitaabka u qoray waxa weeye sida sheekada Soomaalida ay u sheekaysto weeye kitaab manhajiyad cilmiyeysan loo daabacay ma waxaad moodaa markay mu'arrikiintu ka sheekeynayaan kitaabkan waxa la yiraahdaa sheekha waxaad moodaa sidii wariyeyaasha oo kale ayuu kitaabka u qoray waxaadna moodaa inuu ugu talagalay inuu akhbaarta dhacdooyinkeeda intuu qorto hadhow uu kala nidaamiyo marka mageeri baa ku soo gaadhay ma waqti buusan u helay la garan maayo laakiin sida Soomaalidu u sheekayso oo kale ayuu u qoran yahay majority kitaabka wuxuu ku wadaa mar alaala markuu ka sheekeeyo muslimiinta iyo halgankooda iyo diyaar garowgooda iyo dagaaladooda iyo meeshay aadeen iyo meeshay fariisteen iyo ciidankay haysteen iyo hubkay haysteen iyo meeshay degeen iyo wixii la soo gudbonaaday sadxada ku xigta wuxuu galayaa gaaladii iyagana wuxuu leeyahay nimankii amxaarada ahaa iyaguna halkaasi degeen ciidankaasi abaabuleen saasoo ku wadaa taasi waa manhajyada kitaabka qaybta labaad waxa weeye kitaabkani wuxuu ka duwan yahay duruufta aynu maanta ku jiro iyo duruufta muslimiintu ay xilliga ku jireen farqi weyn baa u dhaxay saa daraadeed dadka dhageysanaya waxaan aad uga talin lahaa inayan isku dayin kitaabkan manhajyada ka soo bixi doonta inayan ku asas garayn ama ayan ku cabirin
wax maanta dhulka yaala waaga waxa weeye adduunkan ma ahayn dadkuna dadkan ma ahayn ummaduna ummadan ma ahayn ummadan kitaabkan uu ka sheekaynayo oo taariikhda leh waa ummad ka duwan ummadda maanta aad taqaanaa ummadaasi waxay ahayd waxay difaacdaan iyo waxay u halgamaan iyo waxay ilaashadaan iyo waxa ka khaldan niman garanaya bay ahaayeen taasina waa nuqdo kale nuqdada kale oo muhiimka ah waxa weeye kitaabkan dadka hadda aan leeyahay waa turjumeen iyo akhbaarta dhaka maqalka ah wax badan oo aan jirin baa laga sheegaa wax badan oo xaqiiqo ah oo jirana waa la sheegaa مثلا قبائل marka laga sheekaynayo qaabka dagaalka loo kala galay ciidamadu intay ka ahaayeen qolyooyin qabiiladii Soomaalida ugu awoodda weynaa imaam Axmed Gurey meesha uu ka soo jeedo waxyaabo noocaas oo kala qolyihii wixii kala ahaa yaa maamulka ka bedelay isagu xageebu ka soo baxay meesha uu ku dhashay xagee ahayd akhbaaraha noocaas oo dhan sheekhu marka sida lagu yaqaanay kutubta taariikhda ma uu gelin tafaasiil dheer oo laga fahmi karayo su'aalahaas oo dhan dadka ka qanciyaan saadaradeed ishaaraad buu bixinayaa waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo qabaa'isha Soomaalida ee meelahan ku imaanaya ama canfarta oo kale kitaabku waxa laga yaabaa inay markiiba inay ku soo noqdaan dhowr iyo 10 jeer waxaad kaloo arki doontaan qabaa'il maanta jira oo Soomaaliya iyo kuwa aad magacyadooda arki doontaan oo lagu leeyahay waa Soomaali oo aan maanta cid ka joogin maaqan ma iskiin daraaseen qabaa'isha inna waa inaan aqoonba ma dhulkaasi ku baabeen la kala garan maayo manhajyada noocaas ah wayna faantaan taagu marka waxaan ugu tala galay in aan maahmaadii la oran jiray maxay ahayd heer guura raac iyo heer guura raac iyo ciyaar waa loo kala waramaa laakiin isma arkaan macnaha ugu jeeda waxa weeye dadku horta bal inay fahmaan bal futuuxul xabasha oo ninka qoray uu dagaalada inteeda badan uu joogay intii ka horeysana labadii nin ee ugu muctaminsanaa ee dagaalka hogaamiyaasha waaweyn ka ahaa uu ka qaatay waxa uu kitaabka ku qoray waxa laga sheegayo iyo waxa ka jira horta inaan ogaano kow midda labaad inaynu ogaano ummadan Soomaalida ee bariga Afrika degan iyo halgankeedu inuu sameeyo wax maanta bilowday dagaalka lagula jiro Soomaalida dawlad la'aanteeda iyo burburkeeda iyo kala qaxinteeda iyo la dagaalankeeda iyo mabaadi'deeda in la baabi'iyo iyo baqaasidii awooyaashan ay ku soo dhinteen oo dhan in cagta la mariyo inay tahay wax muddo dheer soo socday oo dadku ay ku baraarugaan horta waxay ilaashanayaan iyo waxay u halgamayaan inay kala fahmaan inta markaan taa ku soo ururiyo waxaan u gali doonaa ninka la yiraahdo Ibn Shihab al-Jilsani sida uu sanadii sheegay wuxuu qaybanayaa dhowr qaybood laakiin waxaan rabaa inaan hal xaraf ka tagin aan looba oranba waxbaad ka booday iyo waxbaad soo dusha ka xalloogtay wuxuu sameeyaa marka wadaadku inta uu kitaabka qorayo waxa ku imaan doona dhowr gabay oo carabiya oo wadaadku uu tiriyay ninka kitaabka qoray laftiisa dhowrka gabay waxa weeye marmarna wuxuu kaga sheekeynayaa duulaamadii iyo dagaaladii oo waa gabayo gubaaba ah oo ku gaalgelinaya nimanka mujaahidiinta oo halgamaya mararka qaarkoodna wuxuu ku amaanayaa imaamka Axmed Gurey nuqdada kale aan rabaa inaan tilmaamo waxa weeye kitaabka waxaad arki doontaan min dabal ilaa dacal inta aynu joogno sheekhu inta uu kitaabka wado weli arki maysid isagoo oo imaam Axmed Gurey keligii magaciisa ugu yeeriya markasta waxa ka horeysa al-imaam حتى dadka wixiidka leeyahay kuwa gabadha ka qabo kuwa gabadha ka qaba kan adeerkiisa kan eedadii dhashay marka uu tilmaamay wuxuu ku leeyahay waa ibnatu imaam ama wuxuu qoranayaa waa ibnu am al-imaam la arki maayo taasina waa nooc min al-ihtiram ah oo laga soo gaaray culimada islaamku ay dhaqan u lahaayeen qofka hogaamiyaha in lagu ixtiraamo waxa uu leeyahay arrintaas marka waxay tusaaleynaysaa in waxaan ku arki doonaa oo kale dhowr nin oo kale oo ay isku magac yihiin kitaabku jira oo Axmed Gurey iyagoo leeyahay oo qabaa'il hogaaminaya waxyaabaha keena weeye in Axmed Gurey qolo waliba meel la aado wadaadku marka inta aanu gudagelin dagaalka Axmed Gurey suu ku bilowday muqaddimo yar buu marayaa marka waxaan ugu talagalay sidii daraawiishto kale u akhrin maayo sidii waxaan u akhriyayaa wadaadadu ay waxa la oran jiray maxaa la yiraahdaa tarjuma caama wax la yiraahdo tarjuma caama cibaarada carabiga waa akhriyanaa kadibna Soomaaliga u tarjumanaa waxaan ugu talagalay si balorta futuuxul xabasha waa la idinka sheekeeyaan in is arka muhiimada aan uga jeedaa waa kaas sheekha marka Ibn Shihab al-Jilsani wuxuu leeyahay alxamdulillahi al-mannan بالفضل والجود والإحسان الذي جاد بالعداء قبل السؤال وأسبغ علينا النعم والإفضال والإمنان وبدأ بالإيجاد وأردفه بالإمداد وتابع النوال فلله الحمد على أعدائه الجزيل المنان وفضله الذي لا ينقدع ولا ينحسر بعد ولا ميزان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلينا رسولا أمينا مبينا نبي الأميين محمدا المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم اختلف الملوان وعلى آله وأصحابه الذين نصروا الدين القويم بالسيف والسنان وبذلوا الأموال والمهج وفارقوا الأهل والأوطان انت سويت كمقدمه يقول يا إلهي وأمانة يا وشهادنا يا نبي وكسلي يا نبي وأمانة يا يقول يا هاي سلق يا صلاة انت أي ضيح يقرح صوب حيان نبي قدوش سهاته صحابتي وهدنا يجنا عبيان وحلي دين تقول جرجاري دين تتوصل وقول جرجاري كيف يورن naftooda iyo xoolahoodana ku bixiyay
dadkoodii iyo ehelkoodii iyo waddankoodiina uga tegay laanna waxaad arkaysaan saxaabada xogaa uu taaban doonaaye nin maka ku dhashay baad arkaysaa oo maqrib alcarabi ku dhintay iyo nin maka ku dhashay oo magaalada tirmid iyo khuraasaan meesha ugu dambaysa ku dhashay oo qurashi ama xijaasi ah intaasoo dhan waxay doonayeen bini aadamka inay ka badbaadiyaan inay dulmiga iyo addoonnimada ay shaydaan addoonka u yihiin inay ka baxaan laanna adduunka waxa ka shaqeeya waxa weeye inaad ilaahay addoon u noqoto inaad shaydaan u noqoto wax u dhexeeyaa ma jiraan meel dhexoo laga qaraabtaa ma jirto oo xadaarad iyo ilbaxnimo la yidhahdo kadibna wuxuu leeyahay fabacdu intaa kadib waxaad ogaataa buu leeyahay ana rasuulallahi sala allahu alay wasalam khayr rusul rususha ilaahay soo diray kan ugu khayr badan inuu nebigeenna yahay wa ana ummatahu khayru lumam ummaddiisuna inay tahay ummadda ugu khayr badan qadaa bidalika rabu larbaabi fii muxkami alkitaab arrintaa ilaahay baa qadaageeda gooyey kitaabkiisa ayuuna ku caddeeyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas aayadaasu hoosgeeyey wakadalika ilahay wuxuu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata labada aayadood buu deliishanaya macnaha uu sheegay wamaa dalika ila liitibaacihim afdal rusul mizyadana waxay ku heleen buu leeyahay rususha kii ugu fadliga badnaa bay raaceen wa awaluhum fi lqidami fadlan xagga duug ahaantana ugu fadliga badnaa ugu horreeyey xagga soo saaridana ugu dambeeyey wa aakhiruhum bicsan maxamedin sala allahu alay wasalam sidaa daraaddeed ayay waxay ku noqdeen buu leeyahay afdal alumam muqadimada waa iska qururixeen cibaadatii maca alxaq wajaahadhum alkufaar almukhaalifiina lihada diini min saa'ir aladaad kuwaasoo u gacan qaaday inay la dagaalamaan cid allaale ciddii gaalaha ee diinta kasoo horjeeday jinsigay doonaan iyo midabkay doonaan iyo qoladay doonaan ha noqdeen wasaa'ir iljihaad ama qibladay doonaan ha jireen wuxuu leeyahay shiikhu wasaa'ir iljihaad markuu maray wuxuu yidhi asaba wadabuur washimaal waljunuub asaba wadabuur waa laba dabaylood magacyadood oo axaadiista ku sugnaata laakiin badanaa waxay culimmadu u isticmaalaan xilliga wadaadkani uu noolaa in loo isticmaalo jihada ay ka yimaadaan marka waxay shimaal iyo junuub markuu isticmaalay labada kale waxay ka kala yimaadaan bari iyo galbeed waa adoo yidhi bari iyo bogox oo kale wey marka wuxuu leeyahay faadharuu bisayfi hada diina sharqan wa qarba iyagoo halgamaya oo dagaalamaya oo jihaadaya ayay diinta kor yeeleen bari iyo galbeedba waxay ku kor yeeleen buu yidhi wa wacran wa sahla meel buura iyo meel banaanaba waa gaarsiiyeen famahadu larda tamhiidan arlada ayay gogleen wadawaqu lkafarata bisuyuufihim tadwiqa gaaladana seefahooda ayay ku fullayeen wadanabuu awtaadahu xukumadoodiina waa burburiyeen wadanabuu awtaadahu diinta awtaadeediina waa taageen weye washayaduuhu tashhiidan si toosabayna u adkeeyeen walam yazal bifadli illahi subxaanahu watacaala ilaahay fadligiisana kama aanu suulin yucaqibu man salafa bihim khalafan raggii ka horreeyey ragga ah inuu rag daba dhigo laa yanaalu man naawa'ahum ila talafa qof allaale qofkii nimankaa la collaytamaana uu baaba'ayo fahum ila al'aana yujaricuuna alkufaara walmunaafiqiina ka'sa almanaaya ilaa iyo haddeerna waxay gaalada iyo munaafiqiinta cabsiinayaan koobabka geerida wayahiluuna calayhim turaaba arazaaya waxayna dusha kaga tuurayaan maxaan ku dhahda ciidda dhimashada ama balaayooyinka razaaya waxa la waa jamcu radiya waxa weeye waa musiibada mahadho waxay soomaalidu yidhahdaan mahadhooyin bay ku leeyaan wey xataa ta'tiya alqiyaamatu binafkhatiha ilaa ay qiyaamadu dhacdana dagaalka iyo halgankaasi waa joogsanaya dadka diinta haysta iyo dadka kasoo horjeeda ay iskula jiraan insha allahu tacala yusho ilahay wuxuu yidhi waita'adana rabbuka layabcasanna calayhim ilaa yawmi alqiyaamati man yasuuhum suba alcadaab aayaddaas soo qaatay ilaahay wuxuu kula ballamay oo idan ka qaaday inay ku soo saarayaan cid cadaabka dhadhan siisa ilaa qiyaamu saaca waa ciddii ka leexata aayaddu yuhuudi bay ka sheekaynaysaa bay culimmadu yidhahdaan laakiin qaacidaa jirta culimmada tafsiirku ay isticmaalaan oo alcibaaratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab aayaddu meel ha kusoo degto laakiin macnaheedu ciddii uu soo hodgasho waa taabanaya nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wasla naskiisii laa tasaalu daa'ifatu min ummati qolo diintayda koox ummaddayda ka midii ka suuli mayso qaa'imiina cala alxaqi laa yadurru man khadalahum inay xaqa ku taagan yihiin qofkii garabkooda ka baxaana aanu dhibi doonin walaa man khaalafahum iyo ciddii ka hor timaada xataa ya'tiya amrullahi wahum calaa dalika ilaa arrinta ilaahay iyo talada alle ay timaado iyagoo sidaa ku taagan xadiiskaa wuxuu yidhi abu daa'uud baa wariyey iyo keyrkii waana xadiis saxiixa wuxuu yidhi waxaa badan wakam min jaahilin axmaqa yaquul badanaa buu yidhi nin jaahila oo doqona oo leh xilliga aynu ku jirnaa hada aakhiru zamaan xilli aakhiru zamaana weeye wanaxnu fi lqarni alcaashir qarnigii tobnaad baynu maranaa xilligaasaa murankaasi jira u fiirso qarnigii tobnaad baan maranaa walaa yactarifu bifadli almacaashir isagoo aan weliba garanayn qofka la nool fadliga uu leeyahay walow ra'aa fi samaanihi alakhyaar xataa hadduu arko rag qiimo badan oo sanadkiisa nool la alxaqahum bilashraar wuxuu ku haleelsiinayaa kuwan iyo kuwa ashraarta isku mid weeye buu leeyahy wadalika arrinta waxa ugu wacan jaahilkaana waxa weeye bu lisuu'i dannihi wa qilata fahmihi malihiisa xun iyo fahankiisa hooseeya iyo waqalabata jahlihi iyo aqoontiisa jahliga ka qaalib noqday iyo wacadami cilmihi iyo aqoon la'aantiisa ayuu wuxuu ictimaadayaa calaa maa sabata muctamidan isagoo weliba cuskanaya calaa maa sabata anna saacata qariibatun oo wuxuu leeyay niyo aakhir zaman baa joognaa halgan iyo jihaad iyo dadaal iyo inaga daaya waxaas iska cibaadaysta faraha ka qaada waxaas
والاعتماد يا أبو لي ونكاس ولي لسه تاجي مرن كدجنا أن ساعة قريبة وحلي قيامتي وأدودها قرني تمناد بالله شكاني أجو وقد ظهرت أشراطها وتضوق النكور على مدى هذه نوام مقدين ومن أشراطها وحكم ذبيل أن الشر يستولى إن بلايا يدبت أي قدومك كقارب نغنص أيضا أي سوكر مريتونتو وأن الخير يولى وحونا جاين وجنسن دونا كميدا أرنتا سودليشن يوقفك أحمق أو شايلك ومركي هلكن إيو أمد الإسلام كهلا إصلاحي اللي يراهدو وحلي ما هلكن آخر سوان بالوجرة شرك ودم بعدون كبدان نقداي وإن كان ذاك صحيحا فلا يلزم أن يكون في كل البلاد إن كسو أي تاسي تشتوي يرو قيامها على مود كذا أي جيران شركنا وبدأي هذا نوع يرى أرنتا سيدة صح ما وضعها كان دلال ما يسوي لي أن يكون في كل البلاد وضن كستين أرنتا صح كتاي ميل هذه الإسلام كليته ميل باقوة في عن شوقامي وأن يحكم على جميع البلاد أرنتا أنا لقوم وضع حكومي كره الضوء إلهي وضن وإذا وحي لا تقتر بما يقوله بعض الجهلة من الناس سيدو كلا وحي لها هكوك السومين وحددك أقون ترى أي إليين أوله وددك جهلة أي إليين وددك كمذا وإليين حديث بالجوري النبي بقولي عليه الصلاة والسلام أنا لا أؤلف في الأرض قولك أردن أروي من صور لنا يوضمية ما هي حديث كان وحي وحديث ضعيف وموضوعة وقد قال العلماء نفعنا الله بهم أنه ليس بحديث علماء وحي الشيخ بير هذا الكاس نبي الله تبني يونس حديث هين إنما هو مفترى وهذا النبي قال له بين أبورتي وقال إمام السيودي رحمة الله عليه إمام السيودي وهذا الكي وكتاب كي متنه وحوي شهاب الدين الجيساني إمام السيودي وهذا أركز هذا كان إمام السيودي قرني تمناد دون ولا يسجل في ساد رادد إمامكو نينك كتابك قرية وهذا أركز يسقو يمن شوجا إنه كور هي علماء مصر كتب بدن أو تصنيفي إمام السيودي أي كسو قارن يمن أو تلمام يمرك سوق هذا يا هذا الحديث كأوكي الإمام السيودي وغيري وقال إمام السيودي رحمة الله عليه الذي دلل عليه الأحاديث النبوية ويروى إنه سوق هذا الإمام السيودي ولها أو كسابسا آخر الزمان كيوم مدة النبي محمد تجلسه في لو عيريو أو مش أوجا صارت بدك شهادة لها أو لها حديث شرك بطو آخر الزمان بالجوجا وحنا أكثر وكيل رانيا مركو الإمام السيودي وحيري الذي دلل عليه الأحاديث النبوية أحاديث النبي واحد سنة أن هذه الأمة المحمدية تجاوز مدتها 1000 ومدة النبي محمد عمره إنه كلها في الدورة وأن سيادة لا تصل 500 ليرات كنا إنه وأن سيادة لا تصل 500 أنت ليرات أين شنبغ لنا إضافة هذا الكاس إمام سيودي والون نقديا وأنا هذا الجف هذا الميلان شونا شنتي بقول الله ناف ما يوال ناف مثلا لما نبى سأقول يقضي إمام السيودي ينك اللي ابن جرير الطبري لما لا نبى مثلا واقول بسير إن تحديديان ومدة النبي محمد تيجي لدون حديث باكر في صحيح البخاري أي علماء وحقار غاتان لكن واحد شري وحياة عن شنت اللي لقرين عمرك أدونك ورمو صوب لودي إنتي شري يأمروا إنتي شريان وذات كتبة كان ولا وعمرك هذا واحد عقلها وجاري كرين أقونت أن على هنا شنت اللي قشيد عبا وقد عصا تدون السيود قرنية تبراد مرة شن قرنية وكتمرة كوني يافض بقولي نوري استمعت الله مريا والموسيقى والشيء والله نافذة جرير الدوري سجل في مدة شن بقول سونا عجاني قرنية أفراد بلوغي سميرها سودنتي يسوون شن بقول ميرها سعدري يسوون ميقا كدم بيه كون كبلا كدم بيه لولا وذات بوحرك لولا وين مثلا كل يغلى مركا عمرك ومد النبي الله محمد عندنا متقان كد وحلينو شيء كليا أشراد النظام أدون كسر دونا واحد بدل دونا يو محمد هذا عمرك أنت دوران دنا عندنا متقان مدة كله محميهم مقياس كبني آدم كعقل كبني آدم كسر قرن كريو مر هذا واحد نسكو سجنين أو أم قرآن أم حديث لجو شيء أو خبر نقلية أو سمكو إيمان تحديد كعقل جاو بقياس أدونك واحد عقل كبني آدم جاري كرما معي لي علماء واحد هذا عقله sida aragtidaada iyo awooddaada iyo dhagahaaga iyo maqalkaagu ay xuduud u leeyihiin ayaa caqligaaguna xuduud u leeyahay anna quraanka markaad aragtid تعرج الملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة شن بقولوا كن أما كنتم كنوا سنة ما لين ودي أنت عقلها وما كيري كرو لكن قاب إلهي أدونك هو الحسابية وحين قرن كرما مثلا مركز الإمام السيودي وغاب كسر نقليه ومسايش وكسم برير حدا الإمام السيودي رحمة الله عليه كسر إمام جليل وآدوينها مركز وما وراء ذلك من علم الله كل شنطة بقول وحي كذا يوحي يجري وحي كذا يلاعب علم قال يقال وهو العالم العليم إلهي بتلمامها ونحن نعترف بأن عين الله ترعى وذات لا ألف سنة وحيري وعن أقول سنة إلهي يشيس إلى إلى دون ترعى أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى دون أو إلهي ونحرسن دونه ولم يزل دينهم يظهر ويتجدد دين تودنا مركز أي موقن دون أي نسوع عصبوران دون وإن قلت أيها الناظر المتخصص وإن قلت أيها الناظر المتخصص هذه آبة شاهد نك هذا وحسيرنا يو هوشن كعنتكوها يو وسائل المتفحص أما نك وحويدين يو وحبار يو عن عوال الأمور أرمها الجنوه هذا بارا أما قوة صار وحوادث الدهور يدعونك أدونك صامري أبهجني هذا يتراهي
يقول مرتقاد أما يقول مرتصور بأخبار المجاهدين الباذلين المهج رجي أخبار المجاهدين في النفوه هذا كبحيي الغازين في الأغلاس في الأغلاس والدلج دولان كقوها أغلاس كواحد الدلج كانوا واقول مار الرجلها أغلاس كانوا واكن صباح دي أو أنت عن واجو برين مدو كتير سلاد اللي قلت غلط سلاد اللي قلت العمل يهموك أرورتي عليها رجي النوع حلية النوع عسكري دولان كها وأتحفني بما جرى في زمانك حداد ترايد بيري وحد يقول مرتجل لسا بما جرى في ذلك وماش كتابك مقعس لقاك يعني وأتحفني بما جرى في يتحافك واحد إلى قف واحد مرتصور كله وصل هو يعمل حداد أرنتها يودي سيد بيري وأتعاش يسوي شيء وبما شاهدته بعيانك يوحي على إنها وكسر على إنه جهاب حدانا هاي فأقول بي وحنا لا هذا الكلام هذا ربح حداد يودي سيد بيري وحدادين يو أرمها سرنا سؤال كقبو دعوينك أدونك دونيو ولبا وهي مجاهدين توركودا ونفتو كبحي حلية النوع عن الدولان كأها وحي سبنك أتشو تدعي هداد ويديسي وحن كلها هبير إن القصص التي جرد للمصطفى فرقوا قصة بالعب النبي عليه الصلاة والسلام وحي القصوين كي النبي عليه الصلاة والسلام اللي جي تدعي والأصحاب فهي بهجة السمان وسنة كواحد لقوق فيه وقصص الخلفاء الراشدين ذوي الألباب والفدن قصوين كي خلفاء كذا ميسي الراشدين تها عقل قبضنا كسك قبضنا فكتب السير وتواريخ العلماء مشرقة بفضلهم وما فعلوا كتب السير كتب التاريخ العلماء أي قرين أي أمد فينسا فضل قوضة يوحي سمايات وقصص من بعدهم مبلوغ بها كل كتاب أي وحي أنت كدم بينا كتاب كستا نحريس أي كتاب ولا تشك في ذلك بأرندا شكل لك مغبو ولا ترتاب مرن ضمن كمجرو ولكنني أروه أدان ابن شهاب الجساني هاي أتحفك بما يشتد الاشتياق النفوس إليه وعن حكومة تجلين يا حكومة سوريا وحنفت أيوه لوذو وما ثبت من ذلك أيوه أرنتا كسبنا هذا وبما أعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صح عنده عليه الصلاة والسلام أنه قام في مقامه وقال ما من شيء كان ولا شيء يكون إلى يوم القيامة إلا علمتك به المعتبر من ذلك اليوم فهو المعول عليه بما يحدث الله فيه من الأمور ويجري الحديث سوق على يقولي النبي وحلا يتصي أنا ماشي تاجا وحي إيمان دونا يوحى إن وحنا سلا أقول دونا بروين وماشي وقطعه كده من وحي فقد أشار عليه الصلاة والسلام نبي وحي إشارة وفرت كفيقة حديث أو كشري إلى المجددين لهذه الأمة أمر دينها إلى مركز أمة الإسلام كاسو به دونان ده الدين توضع عصبون أيسيا مركز وحي فمنهم من يجدده بنشر العلوم في الآفاق وحكم إذا من علم فافين دين تكو عصبون أيسين دونا ومنهم من يجدد بضرب السيف لذوي الشقاق والنفاق وحكلوا كم إذا الدين تكون عصفورين دونا إن السيف كلها الجمال والله دجالمان تذكر أهل الشقاق أم النفاق وقالهم بقوة ومنهم من يجدد بحسن السياسة والدراية يقار مامل وناق يعقلي ومدى الإسلام كوكها جالسين دونا كده من وحي فأرعني سمعك مقال كاجا إيسور رارعي اليوم لي عليك سأن فوجيريو وأحضرني جميعك اللي يشهد عليك هذه قلنا يسوق كان هلك يسوق حاضر وين في آد مرخانتي وقلنا قلت أرنتا فانظر في كتابي واحد كتاب إيش جلسة المسمى لقوم مجعب فتوح الحبشة كتاب كي فتوح الحبشة اللي هذا كتاب كافيري وأنك قريب إلى على يد الإمام الأعظم إمام كوينا الأمجد أشرف تبنا الهمام هنك وينا الأكرم جوين ماذا بنا العسد ليبان تبنا الذي لم يسمع بمثله ولا تلا أحد من موالي تاسون لم إذا أن لما قال ودري أمرنا قف كذا وتجعل على عرق فعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته وأفضاله إلهي وحي المسلمين تأي أنا جبا تبركوين كيسي يفدي كيسي هنوسي عليه يا رجل مذا